بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Xuseen oo ku magac dheer Janaale waxaan ahay tafaftiraha hay'ad ku saabsan warbaahinta iyo wacyigelinta oo la yiraahdo Baraarug Media Center haddii alla yiraahdo waxaan soo jeedin doonaa silsilado barnaamijyo ah oo ku saabsan wacyigelinta dadka Soomaaliyeed in aan iska saxno wixii khaladaad ah isla markaasna aan isku amaano wixii wanaagsan dhaqankeena iyo diinteena iyo taariikhdeena iyo siyaasadeennaba ku haboon marka barnaamijka ugu horeeya aan soo jeedin doono waxa uu ka hadlayaa Haybsooca ama waxa loo yaqaano takoorka haddaba waa maxay takoorku waxa weeyaan iyada oo qaybo kamid ah qabaa'ilada Soomaaliyeed la xaqiro lana takooro iyada oo sababtu ay tahay waxa la leeyahay dadkaasi waxa lagu takoorayaa reerka ay yihiin ama qabiilka ay yihiin taasoo ah mid soo jireen ah oo markay ugu yar tahay dhowr boqol oo sano soo jirtay takoorkaas oo run ahaantii aan loo haynin wax xaqiiqo ah ama wax dhab ah oo la taaban karo sababtoo ah sideedaba waaba khaladba in bini aadamka la kala saaro oo qaar laga dhigo dad nasab ah qaarna laga dhigo dad aan nasab ahayn iyada oo saan ogsoonahay bini aadamku uu gebi ahaantiisaba isku meel ka yimid haddaba diinteena islaamka maxay ka qabtaa takoorista ama haybsooca sida aan la socono Soomaalidu waa dad boqolkiiba boqol muslim ah waliba waa dad ku adag oo aad ugu dhaqma diintooda islaamka haddaba haddii ay saas tahay oo aan muslimiin wada nahay muslimku mowqif cad buu iska taagay arrimaha haybsooca marka qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu diinta ku dhaqmo lama rabo in aayadihii quraanka qaarna aad ku dhaqanto qaarna aad iska diido oo aadan ku dhaqmin iyada oo aayadaha quraanka qaar ay leeyihiin dadow aayadihii ilaahay qaarna ma rumaynaysaan qaarna ma iska dhigatiraysaan taasoo ah arrin khatar ah haddaba ilaahay muxuu yidhi markuu la hadlayay addoommadiisa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuhan naasu إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير تاسو مع هذا يهي دادو إلهي وحويدا كأبوري نين إياناك ذكر وأنثى وحان اللولة جيدا نبي آدم يحاو ayuu ilaahay idan ka abuuray markii iyagii ay tarmeen ilaahay wuxuu idan ka yeelay shucuuban wa qabaa'ila shucuuban waxa laga wadaa dawladaha oo kale sida marka dadka la weydiinayo aqoonsi passport iyo wixii la mid ah qabaa'ilana waxa laga wadaa مثلا gobolada hadda Soomaalida oo kale waa hal shacab waa hal dawlad waxay leeyihiin passport haddaba ilaahay habkaasi uu dadka u abuuray ee u tarbiyay waxaa loola jeedaa oo keli ah inay dadku isku aqoonsadaan wax kale ma jiraan laakiin maanta sida socota waxaad moodaa in qabiilkii la qabiileeyay oo la siyaasadeeyay oo noloshii la geliyay oo siyaasadii la geliyay oo dhaqaalihii la geliyay oo guurkii iyo dhaqankii la geliyay taas oo ah حرام إلهي وممنوعي صوتوا إلهي قابكو أسمي شعوبا وقبائل لتعارفوا أرنتاس موافق سلام سيدو كلام نبي سعد أيو أشعري إن أي سنجرين تكور لإسكو السماوي تتكون أي إسكو أصل في مادين أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحيولي كلكم من آدم وآدم خلق من تراب
dhammaantiin aadam baad ka timaadeen dado aadamna carrada ayaa laga sameeyey sidoo kale nabigu waxa uu yidhi laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa licajamiyin calaa carabiyin yacni berigii saxaabadii waxaa jiray tartan u dhexayn jiray carabta iyo cajamiyiinta cajamiyiintu waa dadka aan carabta ahayn markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi cajamiyiinta iyo carabtu ma kala fadli badna oo carabtuna kama fadli badna cajamiyiinta cajamiyintuna kama fadli badna carabta halkaasi si cad ayuu ilaahay aayadihiisa qur-aanka ah ku sheegay nabiguna si cad buu inoogu sheegay haddaba dadka aaminsan in ay jiraan dad nafsoo dhiman ah haddii dadkaasi meeshay aadayaan uma garanayo sababtoo aayadihii ilaahay iyo axaadiistii nabiga khilaafsan yihiin marka khatar baaba ku jirnaaba run ahaantii qofka waxaas aaminsan oo fikirkaas aaminsan khatar buu ku jiraa inuu ilaahay ku ciqaabo arrintaas iyada ah sidoo kale waddamada adduunka waxay leeyihiin waddan waliba dastuur buu leeyahay dastuurada waddamada adduunka waxaa ku qoran in dadku aanay kala fadli badnayn dadkuna ay siman yihiin kuwaasna waxaa ka sii weyn bayaankii caalami ahaa ee xuquuqda insaanka oo la odhan jiray International Declaration of Human Rights kaas oo dhammaan dowladaha adduunka ay saxeexaan oo dowladaha doonaya inay xubin ka noqdaan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay saxeexaan loona baahan yahay sharcigaasi in loo hoggaansamo haddaba heshiiskaasi caalamiga ah aan soo qaadanno muxuu ka qabaa arrintan ku saabsan haybsooca مثلا قلب كيسا كوبا وحاوليها all human beings are born free and equal in dignity and rights dhammaan bini aadamka ama dadka waxa ay dhashaan iyaga oo xor ah waxayna leeyihiin xuquuq iyo sharaf isku mid ah qodobka labaadna waxa uu leeyahay ee bayaanka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka everyone is entitled to all the rights and the freedoms set forth in this declaration يعني dhawaan xuquuqdaha iyo xorriyaadka ku qoran bayaankan caalamiga ah qofna loogama saari karaayo arrimo la xidhiidha midabka uu leeyahay diinta uu haysto asal ahaan cid uu ka soo jeedo luqadda uu ku hadlo mowqifka siyaasadeed uu aaminsan yahay bulsho ahaan cidda uu yahay iyo meel kastoo adduunka uu ka joogo يعني لما أقول كلا يبين كان عالمي جاء كم خسية عليه دمان شعوب الدنيا وخسية قالوا كأفرادنا وحاوليها no one shall be held in slavery or servitude slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms يعني الدونسية ولا جوجي قاب كستوء إس الدونسي أنا لما أقوله qodobka 16aad waxa uu leeyahay in dadka isguursanaya ay si xor isu guursadaan iyadoo aan qofna la qasbaynin qofna guurka loogu diidaynin cidda uu yahay asalka uu yahay meeshuu ka soo jeedo waa inaan faragelin lagu samaynin arrimaha guurkana loo daayo labada qof ee isjeclaatay ee isguursanaysa halkaasna waa qodob muhiim ah oo bayaanka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka uu noo bayaaminayo in arrinta guurka aan lagu salaynin cirqi iyo asal inaan lagu salaynin halkaas maxaa idinka amray xeer gaal iyo xeer muslim intuba ma ogola waxaa loo yaqaano midabta koorka ama takoorista ama haybsooca haddaba soomaaliya maadaama aad muslim tihiin maadaama aad tihiin dad isku afa isku diina isku dhaqana isku taariikha maxay tahay sababta loogu dhaqmaayo waxaan loo yaqaano haybsooca waxaana maanta la haybsooca oo Soomaalidu ay haybsoocaan laba qolo qoladaas oo ah dadka tanjaleeca ah laakiin la haybsooco iyo dadka jareerka ah oo iyada lagu yiraahdo adoon oo la caayo oo waliba loola dhaqmo si ka sii xun sida loola dhaqmo dadka kale ee la haybsooco haddaba muxuu yahay haybsooca waxaan ka soo qaatay qaybo ka mid ah waraysi
ama baaritaan uu sameeyey telefishinka qaranka kaas oo wariyihii barnaamijkan sameynayay uu wareysanayo dad ka mid ah kuwa la haybsooco iyo kuwa haybsooca oo uu weydiinayo sababta keenaysa haybsooca halkaasna waxaan dhageysanaynaa bal sida dadku ay u jawaabeen. والله قف نوع قوني وما هركاني dadka hadda badan la yiraahdo waa midgo iyo waa dadka shaqeeya waa dadka kabaha tolo biraha tolo maxaan ku dhaafar sameeyaqaanka ah marka daa si fiirisa waxay noqonaysaa in lagu caayinayo shaqadoodii macnaha tumaalka magac waxa la yiraahdaa sida fiican birmaal way hor laakiin dadku wuxuu yiraahdaa tumaal marka waxaan u maleeyaa eray oo talyaani inuu saasa u maleeyaa midgaan amba tumaal wuxuu yahay waa muslim midgaanka waxa la yaxshay wax oo qaatay oo macnaa hala la qalay hasha hadii la qala cunina la yiri hana ka dirginin haye marka waana ka dirgay waana qaataasi sinji waniba ku tarqoonaya meel baa la iska aabaaray yar oo sahlan hebel wuxuu yahay iyo waa martay waxay abaarayaan inay sinjiga ka saaraan Soomaalinimada in laga saaro midgaan baad ana la hadli kartaa tumaal baad ana ma la hadli kartaa Soomaalidu erayada ay u isticmaasho jinsi faquuqa waxaa kamid ah waxaa taqaanid guurso waxaa taqaanid ha ku dhale faadumo waxay kamid tahay dadka isku tilmaama nasabka dhaqankaaga iyo diintaadii aad ku dhaysa midgaan qof nasabad leh guurso oo asal raac damba leh wuxuu kaaga nasabadiitaas waaba midgaan muxuu iga nasabad liidan waaye waaba midgaan anna nasaba ahay marka ay timaado sida loola dagaalami karayo ama looga hortagi karayo haybsooca waxaan qayb kamid ah ka soo qaatay waraysi lala yeeshay ninka caanka ah ee cabdi good la yiraahdo kaas oo Somali Channel uu wareysanayo waxaana soo qaadanaynaa qaybta ku saabsan sida loola dagaalami karayo haybsooca iyo waxa dadka la haybsooco laftigoodu ay qaban karayaan si arrintaasi loo joojiyo laakiin ma soo dhan kartaa iyaga laftarkoodu xumaanta la xumeeyay qayb ay ka yihiin ad midweyn way accept gareeyeen acceptkanka ka sakow way ogolaadeen inaan waxba dheereen ayay ogolaadeen inuu ka hooseeyo ma ogolaaneen nacam sidoo uga bixi karaa maanta marka walaal wuxuu uga bixi karaa anigu waxaan maqlay dadka waxay yiraahdaan ilaa inta la isu imanayo war la isu imanayo maaha anigu maxaan u sugayay inta kuwa isu imanayaan waa inaan anigu istaagaa imika oo yiraahdo war maxaad dheertay halkay soo istaagaa waa inaan anigu haddii qori igu noqonaysa inaan naftayda u dilo waa inaan qiyamkayga ilaahay baa ii ogol diinta ii ogol maanta nin inasabidaya inaan iska celiyo oo yiraahdo war jooji maxaa iyaga ka dhigay fulayga miiran way ay intay isu taagaan intay isu urursadeen oo dhan waayeen hey waanu noolnahay iyagu af bay ku dooneen iyo wanaag wax walaal wanaag hadii ima way gacan baa lagu doonaa diinta islaamka markii hore may walaal anigu intii dhibaato dhacday cabdiyo dil shaqo kuma leh qori la qaatay shaqo kuma leh tuuga shaqo kuma leh kufsi shaqo kuma leh marka nasabka la sheegay inaan iyaga ahayn waa iyaga iyagiiba isdilay ay waxaan ku yiri iyagiiba way aqbaleen inuu aqbalana ma yahay 2700 sanadood ka hor dambiga dhacay maxaan maanta anigu dusha ugu qaadaya muxuu idheer yahay waan ka diin wanaagsan waan ka tacliin wanaagsan waan ka nadaafadsanahay waan ka qurux badan yahay sidee la iyasa teeda kale walaalo ninka marka gabadhiisa loogu yimaado ubadkaaga loogu yimaado diintu waxay ku ogashay inaad maalkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada hadii lagu yimaado inaad isdaafacdo weeye haddaba siyaabaha loola dagaalamo haybsooca waa ay fara badan yihiin waxayna ku xidhan tahay fahamka iyo garashada dadka in dadku ay la yimaadaan faham iyo is-aqbalaad iyo isdhexgal taas oo maskaxdooda gebi ahaanba ay ka saarayaan hadda ka hor waxaa dhacday nin dhalinyaro ah ninkii dhalinyarada ahaana waxa uu noqday tabliiq waxaan maalintii dambe la kulmay isaga oo ku labisan cimaamad cad
iyo qamiis cad iyo dhar wada cadcad oo waqtigiisii oo dhan u gaar yeelay inuu fidiyo diinta islaamka. maalintii dambe ayaa ninkii dhalinyarada ahaa iswaraysanay. waxaan ku yidhi warbalii waran. wuxuu yidhi niyow nabad haye. marka aniga ayuu damcay xoogaa inuu itashkiiliyo. wuxuu igu yidhi salaada masaajidka ku tuko. waxaan idhi waa yahay waan kaa aqbalay bal adiguna ii waran maxaa xaaladahaaga iska bedelay. wuxuu igu yidhi niyow anigu waxaa noqday nin tabliiqa haye. waxaan ku yidhi niyow doob baan kugu ogaa inaad tahay ma guursatay. markaasuu igu yidhi haayo nimanka culimada ah ayaan axwaashaydii u sheegayo gabadh baa ayadana axwaashaydii loo gudbiyayo gabadh baan haddii alla yidhaahdo guursan doonaa. markaasaan ku yidhi oo gabadha aqoonni aad u leedahay. wuxuu igu yidhi maya culimadaa iga taqaana. marka waxaan ku yidhi dee maadaama aad tahay nin culimo ah oo islaama gabadhaas ciddii ay doontaba ha noqote dee waa inaad saa ku guursataa. markaasuu soo jeesto yidhi saa ila hadlaysaa. markaasaan ku yidhi haddee waa saas soo nin muslim ma tid gabadhan muslimad maaha. wuxuu igu yidhi war aniga ma guursanayo naaga nasab ahayn. aad baan ula yaabay. markaasaan ku yidhi waryaa dhegayso niyow diinta aad ka shaqaynayso miyaanay kugu duxinba. haddiiba aad tahay nin wadaada oo muslim ah oo shahaadanaya gabadh muslimada oo shahaadanaysa oo soomaaliyada maxaad u xidhaysaa qabiilkeeda ama aad u weydiinaysaaba xataa qabiilkeeda shakhsiyadeeda hadday ku anfacaysa maad guursatid gabadha. marka wuxuu igu yidhi daniyow laysma guursano aniguna wuxuu yidhi naaga nasab ahayn dee ma guursanayo. markaasaa waxaan ku idhi niyow allaha kuu sahla laakiin waxaan ka yaabayaa sidan haddaad aaminsan tahay inaad ilaahay kugu ciqaabo oo qaybo aayadihii kamida aadan rumaysnayn. niyow dib isugu noqo oo diinta si fiican usoo faham baan ku yidhi. marka run ahaantii waxaan waa arrin jirta waana arrin cuqdad weyn oo dadka Soomaaliyeed badankooda ay isgeliyeen. sababtoo ah waalidiinta Soomaalida badankooda waxay jecel yihiin in gabdhahooda iyo wiilashooda guursadaan laakiin waxaa ku jirta cuqdad iyo cabsi ah warnaa gabadhaan iyo wiilkan armay kuu keenaan dad aan nasab ahayn. wasay aaminsan yihiin laakiin run ahaantii qofku marka uu aamino in ay dad muslim wada yihiin oo Soomaali wada yihiin dee cuqdadaasaa meesha ka baxaysa. dad fara badan baa waxay la walbahaarsan yihiin arrimahaas iyaga oo haddii matalan ba gabadhiisa ay u timaado ay tiraahdo aabbo wiil baan soo wada heshiinay wiilkii baan kuu keenayaa waan iskiin barayaa marka ay tiraahdo wuxuu odhanayaa markaaba yaa waayo wiilka. waa arrin dhibkeeda leh. odaygaasi intaa wuxuu iska ilaalinayaa oo gabadhan armay kuu keentaa nimaan nasab ahayn. waa arrin aad iyo aad u xun. marka laga hadlayo la dagaalanka ama baabi'inta nidaamkan Haybsooca waxaan tusaale usoo qaadan karnaa waddanka Maraykanka. waddanka Maraykanka waxaa ka jiri jiray dad addoon ah oo laga qaaday qaaradda Afrika kuwaas oo u shaqayn jiray dad caddaan ah oo leh beero waaweyn. markii Maraykanka uu xorriyadiisa qaatay dowladda Maraykanku waxa ay go'aansatay inay joojiso nidaamka addoonsiga. tiina waxa ay keentay dagaal dhex mara koonfurta Maraykanka oo nidaamka addoonsiga aad looga isticmaali jiray iyo waqooyiga Maraykanka oo addoonsiga mar horeba joojiyay. tiina waxa ay keentay in koonfurtii la jabiyo addoonsigiina sidii lagu joojiyo laakiin nidaamka addoonsigu weli waa u sii jiray. sanadihii lixdamaadkii horaantoodii ayaa waxaa waddanka Maraykanka ka bilowday kacdoon ballaaran oo dadka madow ee la addoonsan jiray ay ku raadinayaan xuquuqdooda muwaadinnimo taas oo ay sameeyaan mudaharaadyo waaweyn. marka waxaan halkan tusaale ahaan idinku soo qaadanayaa khudbad uu jeediyey halgamaagii weynaa ee u dagaalami jiray xuquuqda dadka madow ee la odhan jiray Martin Luther King. khudbadaas oo caan ku ahayd I have a dream waxaan ku riyoonayaa. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. aad iyo aad baa loogu guulaystay in dadka madow ee Mareykanka ah oo muddo 100 sano ah la soo adoonsan jiray muddo yar gudahood dadweynaha Mareykanku ay aqbalaan arrintii adoonsiga iyo kala sarreynta iyo midab kala soociina halkaas wax weyn laga bedelay. maanta dadka madow ee Mareykanka ah kama duwana dadka cadaanka ah. way dhici kartaa qofku inuu shaqo la'aan yahay, inuu faqiir yahay, laakiin saas ay tahay waxaa meesha ka baxday 95% qaabkii cusriyadda ah ee dadka loola dhaqmi jiray. aakhirtaankiina waxa ay keentay dadaalkii ay sameeyeen shacabka Mareykanka cadaan iyo madowga in sanadii 2009 wadanka Mareykanka loo doorto madaxweyne madow ah oo aabihii shay uu ka yimid Kenya, naag madow qaba caruur madow leh, nin aaminsan afrikaanimadiisa iyo midabkiisa aaminsan. shacabka Mareykanku arrintaasi way ka ilbaxeen, wayna taageereen, wayna u codeeyeen. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Well done.